السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kasto naga daawareysaan. Taariikhduna waa 17 bisha May sanadka 2026. wararkii ugu dambeeyay ee soo kordhay taniga intaynu kala maqnayn ayaynu barnaamijka kuwada ugu waaweyn ku faahfaahin doonaa. ugu horeyn waxaynu ku bilaabaynaa Imaaraadka ayaa goordhow sheegay in la soo weeraray. yaa soo weeraray maxaa lagu soo weeraray xageesa la weeraray waa su'aalaha la isweydiinayo. haddaba xafiiska la yiraahdo xafiiska warfaafinta Abu Dhabi oo markaa Imaaraadka warbixinadooda dawladda ka soo baxa si rasmi ah uga hadla ayaa wuxuu yiri xarun nuclear oo Imaaraadka ku taala ayaa la soo weeraray. u fiirsada xarun nuclear oo Imaaraadka ku taala ayaa la soo weeraray. waxaa soo weeraray diyaarad drone ah. khasaare ayay geysteen laakiin meel ka baxsan xarunta iyo meelaha ayaa dhib soo gaaray. wax kale oo cid wax ku noqotay ma jiraan. midda kalena nuclearka meesha uu yaalo haddii la weeraro waxaa dhaca shucaaca soo baxa sun ah. marka wax shucaaca oo sun ahna oo soo baxay ma jirin. marka dad badan waxay isweydiinayaan xarunta nuclearka Imaaraadka maxay tahay. Imaaraadka xarunta nuclearka uu leeyahay waa laga soo weeraray maxay tahay. sootan loo diidan yahay Iran inay nuclear xaruna samaysato. xataa mid nabadgelya Mareykanku ay u diidan yihiin oo ay leeyihiin George ilaa 20 sano wax ma dhaqaajin kartid ay leeyihiin. marka waxaa leeyahay xarumaha nuclearka gobolka oo dhan way ku teedsan. Sacuudiga wuu leeyahay, Imaaraadku wuu leeyahay, Israa'iil iska wadaaf nuclearki weynay leedahay, Turkiga dhowr xarumood uu leeyahay, cid kasta waa haysataa. marka waxaa leeyahay nuclearka nabadgelyada. laakiin uraniumka haddii aad bacrimintiisa xoojisid oo kordhisid 60 ilaa 70 kor u dhaafo sida xisaabta nuclearka laga sameeyo hubo isku bedeli karaa. isla warshadaas ayaa wax uun ku kordhinaysa kadib huba ku soo baxay. marka waxaa leeyahay Imaaraadka iyaga xaruntan malahan. niman Israa'iiliyiin iyo qolo Mareykan ayaa ku jira oo ka shaqeeya oo hawsha iyagu samaystay. marka ilaa hadda marka Imaaraadku wax faahfaahina oo ay ka bixiyeen diyaaradaha soo weeraray cidda iska leh ma lagu sheegin warbixinta. laakiin diyaarad drone ayaana soo weerartay kaliya. marka waa sheeko cusub waay. haddaba marka aanu dadku soo wararkii ugu dambeeyay dab ayaa ka kacay ayaa la leeyahay meel ku dhow xarunta maxadada nuclearka ee dalka Imaaraadka. xafiiska warfaafinta Abu Dhabi ayaa goordhow war soo saaray uu leeyahay waxaanu ka hortagnay oo aan daminay dabkii ka kacay goobta korontada laga dhaliyo ee xarunta nuclearka la yiraahdo Baraka oo markaa ku taala dalka Imaaraadka. haddaba mas'uuliyiinta waxay sheegeen in ay xaruntaasi bartilmaameedsatay diyaarad drone ah laakiin wax dhibaato ah iyo cid ku dhaawacantay oo dhiba ay soo gaarsiisay ma jiraan. dhanka kale shucaacana ma jiro oo wax shucaaca oo xarunta ka soo baxay oo sun ahna ma jiraan. marka hawshaasu marka iyaduna warkaasu waa cusub yahay. waa war hadda soo dhacay oo Imaaraadku ay sheegeen. waa ka gudbaynaa marka wixii akhbaarada oo meelaha ka soo kordha waa arki doonaa. kullay barnaamijyada dambaan idinku soo gudbin doonaa. Netanyahu iyo kooxdiisa amniga u qaabilsan waxay ka tashanayaan Iran. waxay leeyihiin iyagu warbaahinta Israa'iil ma ka hadlayeen maalmahan dhawaata idin soo gudbinay. Israa'iil waxay aaminsan tahay Trump inuu amar bixin doono la weerari doono Iran. heshiis ma jiray leeyahay. marka hadda waxaa leeyahay saacada kadib waxaa kulmaya Netanyahu iyo kooxdiisa waxayna ka arisanayaan dagaalka dib loogu noqonayo Iran iyo sida Israa'iil ay isku difaacayso. haddii Iran la weeraro kollay iyaguna jugtu waa soo gaaraysaa. sidee isku difaaci karnaa marka arintaas laga hadlaya. wax nabada iyo waxaan ma ba jiraan leeyihiin ayaga Israa'iiliyiintu waxay leeyihiin nabad ma ba jirteen marka waa la isku noqon doonaa.
haddaba markaan idin tusoo war goordhow telefishinka aljaziira uu baahiyey netanyahu wuxuu qaban doonaa kulan amniga looga hadlayo oo markaa ku saabsan inuu dib u bilaabanayo dagaalka. haddaba idaacadda israa'iil ee rasmiga ah ayaa sheegtay in ra-iisul wasaare benyamin netanyahu uu markaa uu isugu yeeray golihiisa wasiirada ee dhinaca amniga iyo siyaasadda qaabilsan ee kooban kulan degdega inay galabta isugu imanayaan, kaasoo ay kaga arrinsan doonaan dib u bilaabashada dagaalka iiraan iyo israa'iil waxa iyaga markaa kala gudboon. marka nimankaasu waxaa leeyahay iyagu waxayba aaminsan yihiin in laysku noqonaa marka dagaalka inuu dib u soo bilaabanayo. marka dagaalka markii la bilaabo say israa'iil isu difaaci karto, khasaarihii dagaalkii hore soo gaaray inuusan markale soo gaarin, waxaasaa laga tashanaa lagu leeyahay. waaye waxaa isaguna goordhow shir jaraa'id qabtay afhayeenka ciidanka iiraan ayaa shir jaraa'id qabtay. haddaba markaan idintu soo warbixintaa laga qoray afhayeenka ciidamada iiraan waxa uu sheegay inay jawaab adag ka bixin doonaan haddii Trump uu isku dayo inuu ka dhabeeyo hanjabaadahiisa. afhayeenka ciidanka iiraan wuxuu sheegay in doqonnimada Washington ay soo noqnoqonayso, taasoo uu sheegay inay ku fashilmi doonaan dagaalka iiraanna ay jawaabta ku filan oo adag ay ka bixin doonto weerar kasta oo lagu soo qaado. marka iiraan laftirkeedu ma ujeedaa way shakisan tahay inaan meeshaan laisdaynayn, cid kasta way ogto waa laysu nasaraa bas, nin walba wuxiisu soo habaysanayo. iiraan iyaduna daraa ugu jirto waxayda kala habaysanaysaa, laakiin wax lagu heshiiyey ma jiraan. marka waxaa leeyahay wuxuu leeyahay ninkan afhayeenka ciidanka oo shirka jaraa'id qabtay waxyaabaha aad wadwadaan waa ognahay inaad rabtaan inaadna soo gaadaan, gaadmo weerara inaad nagu soo qaadaan, laakiin ogaada mid ka culus jawaabihii hore aan bixinay ayaanu bixin doonaa oo saldhigyadiina maraykanka ee gobolka siyaabo la yaab leh oo inaan filayn ayaanu u weerari doonaa oo aan u burburin doonaa. marka waa laysu dhaaranayaa kollay. markaa hadday dhaardhaartu bilaabato sheekadu way soo socotaa, xaaladdu ma dheeraa la leeyahy. qodobka kale ee barnaamijka wararka cusub ee soo kordhay ka mid ah wargeysyo ka soo baxa dalka Bakistan ayaa faahfaahin ka bixiyay safarkii aan la ogeyn ee shalay wasiirka arrimaha gudaha Bakistan uu ku tegay Iiraan. waataan shalay idiin sheegay dhowr arrimood inay isdaba socdeen. qaar ay lahaayeen warqadu wadaa maraykanka nabadda, qaar waxay laanmay waxa iyaga iyo u dhaxeeya waaye. marka warbaahintoodii saakay marka waxay qoraysaa ujeedka wasiirka arrimaha gudaha Bakistan uu u tagay Iiraan. haddaba marka wararkii ugu dambeeyay waxaa leeyahay wargeys ka soo baxa dalka Bakistan ayaa sheegay sababaha booqashada wasiirka arrimaha gudaha ee Tehran. jiradda la yiraahdo daawan ee dalka Bakistan ayaa soo heshay warbixin ay leedahay wasiirka arrimaha gudaha ee Bakistan Tehran wuxuu u tagay safarkiisii aan hore loo sii sheegin. waxa uu Tehran u tagay arrimo dhinaca diblomaasiyadda ah, iyadoo Islamabad ay sii wado inay dib u soo nooleyso howlihii nabadda ee caqabaduhu ay ku yimaadeen ee u dhaxeeyay Mareykanka iyo Iiraan. marka ma ujeedaa warkii shalay aan halkan ka sheegaynay khubaradu ay lahayd arrimo gaara oo wada hadallada u socda ayaa marka hadda la xaqiijiyay. marka waxaa leeyahay wada hadalladu inkastoo ay caqabado ku yimaadeen inaysan wada dhiman ayaa la soo nooleynaya. marka dabcan fariintii Mareykanka ayaa socota oo Iiraan loo geeyaa leeyahay. marka intuu halkaa joogana wuxuu kulamo la qaatay oo kulana la qaadan doonaa madaxda Iiraaniyiinta.